soo dhawaada 30 daqiiqa idinka daahay raalli ahaada. Welcome guys, welcome. Hi, assalamu alaikum. Soo dhawaada Aisha, soo dhawaabayo. Thank you guys. Sorry, waa idinka soo yara daahay xogaago. Telephone ii soo dhacayna. I thought something emergency in jiro, but it was a little bit, but everything fine. Shay kasta waa fiican yahay, alxamdulillah. Even ma iloobin soo dhawaada. Thank you. deeqa warsame ciise cigaal. Yasmin, Jamad, gabdhaha soo hormaray. MashaAllah, the girls are coming in tonight. That's good. Thank you. Alhamdulillah, I'm okay. There's nothing wrong with me. Waxa iga khaldan male. Ilaahay mahadis. Ilaahay mahadis, you know, there is no issue. Alhamdulillah, soo dhawaada. Asal abayo waa ka qaaday. Abdi, all kinds of people. Hamda, Zainab. Oh, thank you. The girls are coming in Awa. Marka Awa, MashaAllah, gabdhaha aad u soo hormaray. Nimco, Gas, Abdi Malik, Suad, Khalid. I wanted to share a few things. Awa ina waxyaaba yar idin la wadaagaan rabay haddii alla idmo. Marka and alhamdulillah, did somebody say wajirana or something? Majiranin, I'm okay. Qalbi from Seattle, so the woe, oh, you know, that's just Qalbi. Yeah, indaha ma beelin. Sometimes waxaan isdhahaa indaha ma beeshid, can you not see? Alhamdulillah, good to see you too, guys. Ayaantan wala mo active aha, a little bit, maalmahani taxogaago. And Facebook, a little bit, maalin hore waxaan geliyay xayeysiinaan geliyay, then lacag tira badan ay iga jareen, and usually my information xayeysiin ma gelin jirin. Marka waxaa igu dhacday, then waxaan xiray accountkii xayeysiinta lagu samayn jiray, then hadda dadka si fiican uma arkaan. Marka fadlan wax badana update gareyn doonaa bilaha soo socda. I'm gonna post a lot of stuff. Hadda tan basaan ka shaqeeyaa. Marka waxaa samayn kartaan like bell icon meesha oo gambaleelka uu ku qoran yahay oo kaleeto ama followga oo kala qoranaysaa, then markasto aan wax soo geliyo waa arki doontaan haddii alla idmo. And so just make sure that inaa meesha aad gashataan inuu idin soo dhaco mar walbo. Waxaa gelinaysaan xidigaa gelinaysaa star camal, because I get a lot of times waxaa isoo maro dad idhahaayo weligeen ma aragna lifekaaga, we never see your work, hadhow gadaalaan wax ka aragnaa. So every time aan life ka soo galaayo, so then you can see. Saas u samaysta haddii alla idmo. And Supreme Court-ka, a couple of few things aan rabay inaa idinku update gareeya caawa. You know, maxkamadaha, you know, say muhiim u yihiin wadanka. Hassan from Minnesota, thank you so much. And Supreme Court-ka marka waa maxkamadda sare ee wadanka waxay leedahay 9 qof ayaa fadhida oo ismiisaama. Waa tii ayaan hore la isku haystay marka aan live ka soo gali jiray oo kale, labadii nin, 3 qof uu geeyay ninka la dhaho Donald Trump madaxweyne, fursadaas oo kale helay ma jiro. Marka oday 27 sano fadhiyay maxkamadda oo ah xisbiyada ka tirsan liberalka ama xisbiga dimuqraadiga ah oo la dhaho Stephen Breyer muxuu ahayd ka fariisan doona shaqada markay dhamaato sanadka maxkamadda insha Allah sanadkan gudihiisa intaysan maxkamadda fasaxa aadin. Marka maantayto
waxaa la isla maray la isla dhex maray a lot of things because inaa xasuusataan in kala ma aqaano Obama ninka hadda haysta attorney generalka ninka hadda qareenka sare ee Biden hadda markii uu muxuu ahayto ninkii tagi jiray muxuu ahaa ninka Donald Trump uu booska Neil Gorsuch uu siiyey waxaa lahaa nin la dhaho somebody send me something here and sorry, like I'm gonna like haddaan waxa fiiriyo then I forget everything. Anyway, maxkamadda Obama wuxuu soo markuu ninkii dhintay Scalia markuu dhintay odaygii muxuu ahayto conservative-ka ahaa oo muxuu ahayto ugu korreeyeen muxuu ahayto aad waxa adkaa muxuu ahayto ideooyinkiisa laakiin nin sharciga ku dhaqmo ahaa markii uu dhintay Obama ninuu soo doortay then Mitch McConnell la celiyay markii Obama uu sii bixi rabay ahayd then waxaa imaaday Donald Trump markuu yimid Neil Gorsuch uu geliyay booskii haddana booskii kaleeto waxaa Kavanaugh mid kale la geliyay haddana waa tuu naagta ka daba keenay marka Biden wuxuu helayaa fursad ah inuu soo fariisiyo asaga qof uu soo magacaabay ama uu soo doortay uu soo magacaabo waxaa la isla dhex maray laba gabdhood oo labadaba madow ah midna California muxuu ahayd judge ka midna DC miday noqon doonto lama hubo also waxaa la isla dhex maray Barack Obama xitaa maanta like Twitter oo kale social media waxaa ka buuxday Barack Obama malakeen Barack Obama wayna jirtaa madaxweyne nin ahaan jiray ninkii la dhihi jiray William Howard Taft wuxuu madaxweyne ahaa 1909 ilaa 1913 maxkamadda sarana waxaa judge ka ahaa 1921 ilaa 1930 marka inuu nin madaxweyne horey u ahaan jiray oo Supreme Court ka loo magacaabo horey u soo dhacday wax aan la arkin oo la maqlin ma ahan waa la isla dhex maray a lot of people so taasaan rabay inaan idinla wadaago also maxkamadaha waxaan rabay inaan wax yar idin sharaxo maxkamadda immigrationka waxay hoos tagtaa wasaaradda cadaaladda maxkamadaha intooda badaran oo waliba federaalka ah oo leh awoodda federaalka ah oo maxay dawladda dhexe ah waxa la dhahaa waxay hoos tagaan wax la dhaho article 1 waa sharci deji waxay ka madax bannaan yihiin siyaasadda oo kale ma xukumi karto siyaasadda like little bit ina idin confuse gareeyo ma rabo because those kind of things wax ani aad u akhriyo waaye marka waxaa fadal like 20 sano la soo dhaafay ama 10 sano la soo dhaafay dadka qareemada everybody isla dhex marayay maxkamadda immigrationka ha laga hoos saaro wasaaradda cadaaladda why because wasaaradda cadaaladda waa meel siyaasad ahaan loo saameyn karo why ninka wasaaradda cadaaladda xukuma madaxweynaha keena madaxweynaha markuu muxuu ahayto ninkaas keeno because wasaaradda cadaaladda waxa xukuma qareenka sare wadanka attorney generalka lama soo doorto ee waa la soo magacaabaya soo magacaaba madaxweynaha waa tii ina xasuusataan in kala maqaan travel bank waxyaabihii la isku haystay markuu yimid Yates naagtii la dhihi jiray oo kumeel gaarka ahayd markii travel bank la soo saaray ay ka booday dan Donald Trump uu la dagaalay haddana uu ku kala faayiray haddana uu ku kala keenay all of that waxay ahayd faragashi siyaasadeed ahayd maxkamadaha marka waxay ku hoos jiraan waxa la dhaho article 1 am cutubka koowaad marka maxkamadaha soo hoos gala malahan faragashi siyaasadeed oo like xisbigii imaada ama xisbigii taga sharci kuma laha shaqo kuma laha oo siyaasadda ma saameyso marka that's why like hadda la isla dhex maraa sababtoo ah kaba soo qaad qofaa sharci suxun ku qaatay dowladda waxay tiri qofkan farfaraad uu sameeyey then qofkan waxay leedahay hala keeno maxkamadda markay dhahdo qofkan hebel maxkamadda hala keeno markay tiraahdo
then dambi soo oogaha iyo dhexdhexaadiyaha immigrationka ka socdo labadoodaba hal xisbiyay hoos tagaan 1940kii literally laba xafiis isku dhagan ayay deganaan jireen dan waa la kala saaray literally I don't want inaan gadaal idiin celiyo daas sharaxaad aad u tiro badan marka muhiimadda ay leedahay in ay maxkamadda immigrationka ka madax banaanaato wasaaradda cadaaladda that's something aan rabay inaan idin sharaxo literally okay and immigrationka USCIS-ka waxay sameeyeen inay kiisaska dedejiyaan sida kaba soo qaad haddii qof muxuu ahayd u shaqeynayo dowladda oo kaleeto hadday dowladda codsato qofkan keeskiisa ha loo dedejiyo kaleeto daad inay sameynayso ayay soo saartay warbixin ah haddii kaba soo qaad dhakhtar kaba soo qaad research weyn sameynayay oo kaleeto oo cilmi baaristiisii ay kala go-ayso kaleeto ama kaba soo qaad clinic weyn oo isbitaal furan ninka xukumaa uu wadanka fiisa ku joogo isbitaalkaas oo kale wuxuu codsan karaa in ninkaas loo soo dedejiyo sharcigiisa sababtoo ah hadduu ninkaas madaxda u ameesha sharciga waayo dad badan oo Mareykan oo asaga ka hooseeyo oo kalkaaliyayaashiisa ah ayaa shaqada ku weynaayo kale data in wax loo dedejiyo kaleeto ayay muxuu ahayto warbixin ah ayay immigration ka soo saareen and also like inay dedejinayaan qofka waxyaabaha nafta khatarta ku keenayo kaleeto sida humanitarianka arrimaha muxuu ahayd like dhimashada kaleeto disability-ga inuu qofka meel xun lagu dili rabo uu joogo kaleeto ba markuu codsado qof shakhsi ah in keeskiisa la dedejiyo iyo markay dowlad codsato ama non-profit uu codsado waa saddex shay oo aad kala duwan sababtoo ah non-profit-ka personal gain oo wax ayaga shakhsiyan kaba soo qaad adi ninkaaga ama naagtaada oo kaleeta wax muxuu ahayd tiri hal igu soo dedejiyo waxa ka helaysaa wax shakhsiyan ah laakiin non-profit-ka waa dan guud oo kaleeto so I don't want you hadhow inaa like message taradii ka badan la igu soo waalo oo la dhaho keenkayga see loo dedejiyaa this and that is not that easy qof shakhsi ah inuu cadeeyo kale hadda kaba soo qaada let me give you an example wiila qof hadda ka hor isoo wacay wuxuu joogay gobol kaleeto cunug yar uu dhalay cunuga waa citizen laakiin xaaskiisa Africa joogtaa sababtoo ah xaaskiisa fiisa lama soo siinin waxeedana lama dedejin cunugii waa la soo waday si degdega Mareykanka la keenay then markii cunugaas Mareykanka la keenay si degdega Mareykanka lagu keenay cunugii waxaa laga helay cancer tumor inuu madaxa ka qabo isbitaalu yaala waa sakaraad that kind of case wuxuu qualified u qalmaa in hooyadaas ninkaas xaaskiisa loo soo dedejiyo sababtoo ah cunugiisa sakaraada oo muxuu ta life support almost ku jiro oo cancer ku dhacay oo 100 shay ku kala socota qofkaas oo kale marka inuu cadeeyo in ay xaalad adag la soo gudboonaatay inay muxuu ahayto arintooda adag tahay oo dib weyn uu haysto hardship ay ku dhacday qofkaas oo kale way fududahay laakiin nin iyo naaga isguursaday way kala daaheen little bit and they said no so that is not the same thing isku mid ma aha so hadhowtii intaa la orodaan hadhihina Jamiilo muxuu ahayto wixii aan oo sheegtay like I like to tell you waxa macquulka ah oo suuragalka ah that's another one aan rabay inaan idin sheego also maxkamadda immigrationka waxay gadaal u dhacsan tahay 1.6 million cases like caseskeeda waxay gadaal u dhacsan yihiin wax aad u tiro badan diskaana inaysaan dib u dhacaan oo faylasha isu gaargaaraan oo kale for a long time ma soo marin that's another thing aan rabay inaan idin kala hadlo also xilligii Donald Trump ma xasuusataan waxaa jiri jirtay in la rabay in ICE because ICE waa booliiska immigrationka basically that's what like a long story booliiska immigrationka why dadka xiraan dadka soo qabtaan immigrationka different law muu kala leeyahay but easily haddaan rabo inaan idin sharaxo that ICE waxay tahay oo waxaas marka xilligii Donald Trump waxaa la rabay in booliiskaas immigrationka ka socda iyo kuwa adi tigidka ku siiyo oo markuu emergency-ga dhaco wacatidoo kaleeta iyo in isku mid laga dhigo
oo laga dhigo sidii like markaan qaxootiga ahayn oo Kenya joogi jirnoo kaleeto oo la dhihi jiray sharcigaaga keen ID-gaaga caaway oo booliisku ku istaajin karo oo ku immigration statuskaaga ama ina wadanka waxa ku joogtid uu ku weydiin karo sababtoo ah booliiska localka ah stateka xukuma waxyaabaha uu stateka soo saaray ku jiraan stateku shuqulku ma lahan arrimaha sharciga ama immigrationka waxaa shuqul ku leh federal governmentiga shuqul ku leh marka Donald Trump wuxuu rabay labadaas inuu isu keeno labadaas marka muxuu ahayd gobollo badan weydiideen midda kale markii ICE la soo dardargeliyay waxay soo saareen program la dhaho 287G oo u ogolaanaya ICE inay tababarto xubno ka tirsan booliiska ama nabad sugidda gobolka degmada magaalada then inay shati siisa inay dadka warrantiga ama qofka digniinta u geyn karaan qof la soo xiri karo inay jeelka ka caawiyaan hadday qof soo qabtaan oo xiraan oo kaleeto inay sharci weydiin karaan marka Donald Trump markuu sheekadaas keenay gobollo aad u fara badan way diideen laakiin magaalooyin badanaa galay oo ayaga gaarkooda jurisdiction gaar u taagana kaba soo qaad degmada degan tahay oo kale waa meel gaar u taagan yes waxay hoos tagtaa gobolka waxay hoos tagtaa federal governmentiga laakiin kaligeeda gees u taagan soo alaaradoosa hoos galay sheriff departments yaal aad u tiro badan oo Arizona ka tirsan Florida ka tirsan Utah like all the red states way wada galeen and then waxaa yimid Biden ninka Florida xukuma DeSantis wuxuu Biden iyo asaga iyo attorney generalkiisa Biden ay ku eedeynayaan inay dowladda ay sameynayso laacid overreach camal that's what basically overreach ay tahay oo meelaan loo dirsan ay soo gaartay gacantooda ama awoodooda ay aad u tiro badan tahay ama ay taasuu kusoo eedeeyay dowladda Biden kabacdi wuxuu soo laabtay wuxuu yiri sharcigii jiri jiray xilligii Donald Trump oo 287G-ga ahaa ha la soo celiyo maxkamadaha celiya sharcigaas oo waa maxkamadaha la isla aaday maxkamadda waxay tiri sharcigaas wax jira ma ahan sharcigaas muxuu ahayto ma ahan wuxuu kasoo horjeedaa ama midabta kooraya dadka muxuu ahayto laga badan yahay minority-ga loogu talagalay waa sharci loogu talagalay in wax lagu ugaarsado ayay tiri maxkamadda then maxkamadihii badnaa markay gadaal u celiyeen oo kaleeto hadda DeSantis wuu ogyahay inaysan gudbaynin laakiin he wants inuu soo celiyo sharcigii asagoo kaleeto ahaa why marka usually markaan dad wax idin sheego I want to tell you why ay muhiim u tahay how ay adig ku saameynayso in your real life kaba soo qaad Mareykanka wuxuu ku shaqeeyaa wax la dhaho presidents like waxaan horey u dhacayn oo kaleeto then haddii Florida laga dhaqangeliyo something like that kaba soo qaad is likely inaysan dhicin ay u badan tahay ba haddii laga dhaqangeliyo in booliiska iyo ICE la isku daro that's a huge problem dib aad u weyn waay ama sharci lahow ama halahaanin way ku saameynaysaa booliiska waxay isticmaalaan a lot of tactics oo tallaabooyin aad u fara badan ayay qaadaan oo ah inay dadka kala soocaan oo dadka fiiriyaan oo diiradda saaraan dadka immigrantiga then haddii immigrationka irbadooda gadaal looga soo diro that gives them way more power than they deserve more power than ay leeyihiin oo kaleeto because dowladda remember Mareykanka waa la kala saaray awoodda gobolka intaanu leeyahay shariifka intaanu leeyahay and that's how dadkii wadankan soo dhisay yes wadankan has a lot of faults a lot of things are ka khaldan but also waxyaabo system badan oo la soo dhisaa jira systemkii sidii mu shaqeeyaa no dadka sidee u dhiseen mu u keeneen no uma shaqeeyo laakiin systemka sidii loo soo abaabulay loo soo dhisay loo taagay udubadiisa ayaa waxay ahayd inay awoodda kala baxsanaato awoodda marka inkii la isku jacburiyo la isku daro dadka dan uguma jirta yeyse dan ugu jiran marka dadka annagoo kala ah qofka madowga ah muslimka ah immigrantiga ah then booliiska like oh qofkan waa istaajiyey maxaa because hadhow berri haddaa suudgaray sidoo kale dowladda ah maxkamada isla tagtaan oo kale judge-ka weydiina booliiska like qofkan maxaa u istaajisay hadda booliis ma isticmaali karaan immigration uga shakiyay sharci ma laha
ma isticmaali karaan. They have to inay sheegaan arrin kale. Oh, leerkiisa ma shidneen, gaariyuu ku dhacay, isbiiru waday, this other thing. Wax sharci dar like thousands of other things ay keeni karaan maxkamaday ku doodi karaan. Laakiin samida sharciyan ku istaajiyay ma laha. DeSantis marka once intaas la soo celiyo. DeSantis hadduu taas marka lacalaba kaba soo qaad inay dhacdo uma badna uu ku guuleysto. You know what's gonna happen? Every single gobol waxaa la keenayaa ayadii xoogaa la soo biya. Haddii xitaa sida DeSantis aysan yeelin ayadii la soo biyay oo la soo yareeyay oo la soo qalloociyay oo qayb kale like waa la soo kala bedelaa a little bit, but it's the same thing. ayadoo la keenaa dan meesha la soo istaajinaa dan dadka anagoo kala ahay saameynaysaa. That's why marka a lot of times Somalida usually they ask me why you care, like you should care about those kind of things, because haddii Somalida maxay dhihi jirta mamahadi ninkii qeyrkiis loo xiro adna soo qoyso. Basically that's what that is. Ayayday that's what she used to say. Okay, that a lot of times I hadlay, so let's go back to the points. Immigration ka waa ka hadlay DeSantis. I think I'm almost done. What do me? Article 1 ka waa ka hadlay, emergencies ka, yeah. So arrinta oo magacaabida maxkamadda sare, it's going to be a whole lot of dance. Waa la isla boodboodi doonaa, dhaanta la isla ciyaari doonaa, siyaasadda way kala wareegi doontaa. I will keep you guys updated. Laba gabdhood ayaa hadda la isla dhex marooyaa. Schumer ninka xukuma sanadka majority-giisa, even though nin halkaanahoo la dhaho Manchin uu kasoo horjeedo uu jiro, wuxuu yiri waxaan u dadejinaynaa hearingka oo si degdega inta lagu soo magacaaba la qabto. So the next couple of days, those inshallah hadba say wax uga soo kordhaan, even stories haddaan idiin soo geliyo, I'm gonna try inaan update idinku sameeyo, idinla soo socodsiiyo. Arrintii oo galaasaska ahaa, galaaskii waa gaday, that one is gone, wuu dhammaaday. Those people gatay, a lot of them Zoom iga heleen su'aalo aad u fara badan aan ka jawaabay. Next time haddaan something like that aan soo celiyo waa idin sheegi doonaa. Galaaska citizenshipka ahaa is ready, haddii alla idmo live aan ka dhigayaa, meeshaana idin soo gelinaa. haddii alla idmo anytime you want it, click on it, ku dhufo. And if you guys su'aal kale haddaa qabtaan, let me know. But qaybta Supreme Court-ka waa isla boodboodi doonaa, aan waa idinla soo socodsiinaa inshallah. And waxaan abuuri rabaa email list oo ay idinkugu soo diro macluumaadka. Sometimes qofka inuusan Facebook ku jirin laga yaabaa inuu ka maqan yahay, so email list inaan geliyo dadka dhan. Isna emailkaaga qofna ma siinaayo, but when you need marka wax soo kordhaan oo kale ama wax soo diyaariyo oo kale, saa idinkugu soo diro. So message igu soo diro emailadiina inshallah, listiga idinku daraa. So anytime even live-ka like this haddaa miskiray sidoo kale waa kuu soo dirayaa. haddii aan la idmo even qoraale haddaan sameeyo, because I'm planning inaan qoraale aad u fara badan aan sameeyo kale, waa idin soo diri doonaa. So DM-ka igu soo diraa emailadiina haddii aan la idmo. Habeen wanaagsan. Thank you.